horta dee meel mahadnaqan ka bilaabo garan maayo oo dee sharafkan oo kale iyo deeqsinimadan iyo hadalka wanaagsan ee aynu wadaagnay eed ku hadasheen waa mid aad ii deeqay waxaan ugu horreysiinayaa mahadnaqa laakiin qofka amba dadka hodheelkan dhisay oonaan horey si wanaagsan isku arag meel qurux badan oo cunto macaan ayay tahay marka horta taa inaan aqoonsigeyga miiska dhiga ayaan jecelahay walaalkay qofka hodheelkan leh hadduu joogo inaan salaamo waana mahadnaqo ismaaciil waana dadkana waan gaadhsiinaynaa dee hodheelka ismaaciil cagaweyne iyo hodheelka wasiirka maaliyadda ee waddanka walaalka yuusuf annaka barashadayeeda wada shaqaynteedu way ka horreysay campaignkan iyo arrimaha waxaanu isku baranay oonu iskugu nimid waxa la yidhaha af ingiriisiga retreat waa dad intay meel isu soo urursadaan meel isku xidha toddobaad in ku dhow haddaanay kaba badnaynba deetana ka shaqeeya bal waxaa xisbi la hordhigaya ee laga iibinayo ummadda inteeda kale retreatkaasaanu iskugu nimid waxaynu ahayn malaha dhowr iyo 10 qof 15 qof meelahaasaanu ahayn halkaasaanu yuusuf isku baranay 7 cishaanu isku baranay 8 subaxii baa la bilaabaa 6 amba 5 barkana waan ka bixi jirnay abubakar xaamud wuxuu ka mid ahaa dadkii nagula jiray retreatka waan inaanu saaxiib nahay haddii aad doonaysaan inaad ogaataan dad qofka mas-uulka ka ah inaan waddanka ku soo noqdo dad badani waanu ka wada hadalnay madaxweynihii hore iyo dadkii la shaqeynaya xafiiskiisa ayaan ka wada hadalnay oo aad u mahadsan laakiin qofka injineerka ahaa ee tallaabooyinka dhiga waa ninkaa yaree gaaban wey marka dad badan oo gaaban waa sare dadka gaaban iska ilaaliya ya inta muuqata maaha in kale oo aasan marka abiib xaamudna waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo walaalka yuusuf anigu waxaan ku bartay debateka aan wada galnay ayaan ku bartay oo qof khaasatan aqoon dheeraada oonan waddanka intiisa badan ku arag markay timaado amuuraha dhaqaalaha taariikhda dhaqaalaha halkuu ka yimid dhaqaalaha waxa la yidhaha taariikh buu leeyahay waxaan taariikh lahayn ma jirto kamaradayna horta alla taariikh bay leedahay halkii ay ka timid waxa lagu sameeyey warshadii lagu sameeyey sidii loo sameeyey packagekii la soo geliyey meeshii la dhigay qofkii iibsaday sidoo uu isticmaalay wax walba taariikh bay leedahay marka yuusuf aad u yaqaana dhaqaale halka uu ka yimaado iyo taariikhdiisa iyo technically sida loo maamulo dhaqaale sida loo maamulo loo sameeyo qof edeb badan oo runta ku wanaagsan oo maskaxdiisu ay aad u geli karto waxyaabaha murugsan analytically murugsan dhex geli karto ayaan ku arkay marka muuse wuu ku mahadsan yahay inuu yuusuf inooga dhigay wasiirkii maaliyadda isagana waxaan kule maanta ku leeyahay congratulations shaqada waa ku taas walaalkay cawaalo shirwac anagu dee kolley dadku dee waa reer boorama la odhan oo dee waxbaa ka jira taas oo dee tolkii dadkii aan ka nimid boorame ilaa saylac ilaa jabuuti iyay daadsan yihiin oo ay joogaan laakiin anagu asliyan iyo laftu waa gebile wey anagu reer gebile baan marka halkana waxaan ka salaamayaa reer gebile wixii telefishinka daawanaya ayaan doonayaa inaan ka salaamo waa dadkii aan ka dhalanay ee na soo ababiyey ee waxna baray weeye xaqa ugu horeeya iyo amaahda ugu horeysana waa reer gebileba ayaa nagu leh taana halkaan dhigo walaalkay shirwaxna aad baan mabsuud uga ahay inuu waddankii kusoo noqday inuu goostay isagoo howlo badan london company weyn oo international u shaqeeya finance oo international inuu goostay caruurtii iyo xaaskiina inuu halkaa ku daayo halkana uu yimaado waa dhib badan oo uu ka qayb galo dee baabuurka dhiidhida laga saarayo ee buurta la saarayo soconaya waqtiga dheer marka anagu haddaanu nahay reer gebleyna aad baanu mabsuud uga nahay walaalkay shirwax aad baanu mabsuud uga nahay wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo cilmiga sayniska dee maanta ayaa iskugu kaayo horeysa inaynu san isku aragno isagana walaalkay aad baan u salaamaya dee shaqada horumarka waddanku in yar baan ka odhan doonaa anigoon hadalka dheeraynayna meelaha ay ka bilaabantay ka socoto amba ay ka jabto waxa weeye iskuullada waxbarashada caruurta ilaa jaamicadda halka laga dhisay maraykan wax kale ma secretka maraykan inuu adduunyada siduu doono ka yeelo oo ciduu doono amar siiyo
markaad soo dhamayso madaxweynaha meesha fadhiya waxaasi waa barina wuu tegi laakiin waxa weeye baladeegad waxa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa Mareykan ku yaal waa ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood oo mid walba ta kale ay ka daranta de sanadkii inta qof ay ka soo baxday degree ka soo qaata BA oo qora ka soo qaata milyuunaad iyo wixii masters iyo PhD marka Mareykan waxa haya ee uu ku socdo waa dadka weeyo sanad walba milyuunaadka ka soo baxaya jaamacadaha adduunyada ugu wanaagsan way marka de halkaana hawl weyn baa taala waxa weeye haddii qof la magacaabo meel la dhigo sida wasiiradaha kaleba de waxa weeye shaqadeedii hawsheedii baa meesha taala sida looga soo baxay marka walaalkeena aad baan ugu taanideynaya de wasiirka iyo wasiir ku xigeenku waxa weeye taageeradii wasaaraddu ay ku soconaysay visionka keenayay de hawl badan baa idin taala adigana congratulations baan la iyo barasho wanaagsan salaadiinta degmada halkan sida wanaagsan uga hadlay oo sharaf aanan wali kasban isiiyay horena aanu qaarkood u sheekaysanay hadalkooguna si wanaagsan iyo deeqay iyagana waxaan leenahay labayk aad iyo aad baad u mahadsantiin salaadiinta dadka kale mutacalimiinta ee halkan fadhiya iyagana aad baan u salaamaya sharafka weyn ay saareen inaan halkan imaado oon isbarano oo aan sheekaysano dadka daantan ku noolna hadal baan doonaya caawa halkan inaan uga diro in badan baa layla kaftamay markaan retreatka xitaa ku jirnay layla kaftamo la yidhi oo kaale samata professor dee ha waad wanaagsantahay laakiin adigu miyaanad abtiyaasha iyo daantaa soo dhaafay ayaa laygu yidhi marka aad baan u jecelahay inaan maanta halkan ku samaysana caawana waa infaad cashaan halkan ku leeyahay daanta oon kusoo noqon doono dee Hargeysa waa meel qura waa magaalo qura waa dad qura sida Somaliland ba ay dad qura u tahay marka taana ma ilowsani dadka halkan degmadan daantan degan iyo beeshan dad badan baan jira oo aan isnaqaano oo aad saaxiib u nahay macallimiintayda qaar ka mid ahaayeen oo wali nool oo aan aad u siyaarto waxayna bareen marka salaadiinta iyo beeshuna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin laba kalmadood oo gaagaaban idinkoo aan ogahay hawlo kale in idin yaalaan Somaliland wax badan bay qabsatay there's no question about that wax badan bay qabsatay 27 sanadood oo maalin dhaweyd oo London laygu wareysanayna daawateen baaba laga yaabaa waxaan ka hadlayay magaalada yar ee la yiraahdo Singapore waa magaalo city state waa magaalo in yar oo ku kooban 1960 waxba ma ahayn 1960 Malaysia dabada kaga taalay halka yar hoose ay kaga taalay xogaa yar oo Ingiriisku ka tago hodheel iyo waxaankaas ayaa meesha yaala Malaysia marka waa la iskara qabtay iyaga waxa u badan dadka degan Malaysia saddex jinsi baa degan waan tagano laba goor baan tugo jaamacadahooga aan ka hadlay xitaa buugna waan ka qornay intaan professor xagaagay markaan diinka ahaa saddex group baa dega Malaysia dadka Malayga la yiraahdo muslim 90% muslim Malay waana majority la 60 qolada labaad community-ga labaad waa dadka Chinese-ka ah ee soo yimid dhulkaas buga 150 200 sanadood laga joogo Chinese-ka waa kuwa labaad weeyo 29% meelahaas ay noqonayaan dadka ku xiga waa dadka Hindida ee India ka yimid ee Hinduuska marka Chinese-ku waa Buddhists dadka Hindiduna badankoodu waxa weeye Hindus oo diinta Hindus ay haystaan waa diinta diimaha waaweyn ugu daaweyn iyo dadkii Malayga ahaa oo majority-ga 60 oo badan muslim saddexdaas dadka marka dadkii Chinese-ka ahaa waxay u badan yihiin way degan yihiin meel walba laakiin xagga koonfureed ee ay ku taalo Singapore bay u badan yihiin wala isqabtay marka Chinese-kii waxay yiraahdeen anagu waday sidan tahay waan iska baxayna oo meel gooni ayaan samaysanayna at least inta koonfurta ku nool wali way degan yihiin Malaysia oo meel waaweyn bay ka hayaan Malaysia wadanka intiisii kale ee ballaadnaa imka Malaysia ilaa 30 milyan oo qof bay ku dhowdaayeen waqtiga kan waxa la yiri baste waxa ma haystaan ay iska baxaan iska socdaan way baxeen Singapore saasay ku baxday maanta xalay ugu dambeysay eegay maanta oo anigu de waan ka daaweynahay maxaan ku leeyahay Singapore gobonnimadeeda oo 60kii waan ka daaweynahay maanta waxa weeye wadan de waa wadanka adduunyada oo dhan markii la eego caawad gali kartaan internetka eega waa wadanka lagu qiyaasay adduunyaduna isku raacday inuu yahay wadanka dadkiisu ay diyaar u yihiin
xadaarada cusub ee la socota technology-ga cusub ee maxaan ku rahay computerka iyo internetka la socota technology ready country number 1 ayaa la yidhi maanta Singapore marka la qiyaasta adduunyada la eego waxa lagu qiyaasaa dhowr amuurood mid waxa weeye qofka sanadkii dakhliga soo gasha per capita income lagu qiyaaso marka xoolaha wadanku leeyahay aad u qaybiso dadka ku nool aad qaybiso waxa xisaabta halka waxa ka soo baxay qofkii waxa ku soo hagaagaya $260,000 sanadkii qofkii ma family individual $260,000 ee ku soo hagaagaya waxay galeen shanta wadan ee marka ugu qaniisan adduunyada dadkoogii ayay galeen waa waxaan 50 sanadood ahayn waxay noqdeen jaamicadahoogii labada jaamicadood waliba ugu waaweynay 20ka waxa ilaa waxa adduunyada de kumayaal baad de adduunyada jaamicaduhu de 20 way gaareen hadana ka badnay waxay noqdeen 20ka ugu horeeya ayay labadoodii jaamicadood noqdeen ee Cambridge iyo Oxford iyo tartanka kula jira iyo Harvard iyo jaamicada aynkaas malay waxay noqotay Singapore waad maqasheen diyaaradahan la yiraaho maxaan ku rahay Emirates iyo Etihad iyo Qatar waad maqasheen diyaarado wanaagsan imka adduunyadii way qabsadeen oo aad aan raacay waa wax la yaab leh laakiin de xagee ka keeneen ku dayashada halkay ka keeneen Singapore Airlines ayaa laga soo qaatay maxaan ku rahay fikradda iyo sida loo maamulo iyo sida cuntada wax walba managementka diyaaradaha waxa soo dhan Singapore Airlines marka waxay noqotay diyaaradii ugu wanaagsanayd the best airline in the world ayay noqotay halkaas laga dab qaadanayo Singapore waxay noqotay markii imika dhawaan wada dhageysanaysan idaacadaha ee madaxweynihii Mareykanka iyo madaxweynihii North Korea oo waligood is arag qof madaxweyne oo kursiga ku fadhiyo Mareykan uu diiday North Korea inuu is arkaan way dhacday waxa la raadiyay meesha shirka lagu qabanayo magaalooyin ballaaran oo waaweyn ayaa jiro oo garanaysan oo Asia oo Kuala Lumpur baa kamida Jakarta kamida Philippines caasimadooda Manila ayaa kamida Thailand caasimadooda Bangkok way badan yihiin Japan waxa la isla gartay Singapore inay noqoto halkii martidu ay imanayso shirka lagu qabanayo adduunyada oo dhan wixii television adduunyada jooga wixii jaraa'id adduunyada jooga wixii maxaan ku raayay joogay jaraa'id everything all communications halkaas lagu soo kuma yaal wadankiina marka advertisement sida de hotelkan oo kale ayaa u noqotay meeshaas halka waxa lagu aaminay wadankooga shaqeeya everything works waxa lagu aaminay meel ammaanku u yahay waxa lagu aaminay meel shaqada laga adag yahay airportka markaad ka soo degto ilaa maalintaad ka baxayso wax walba ay halkeegii yaalaan karti ayaa lagu arkay waxaan uga jeedaa waxa soo dhan maanta Malaysia oo wadamada aad u wanaagsan oo jeebkaygu iska ladan yahay oo soo gashay meelaha sare soo gashay dadkayga sidaa u badhaaray Malaysia dadkayga sidaa u badhaaray ayaa haddana wali u shaqo taga Singapore hadda balaayga dalka la gaaray Singapore baa u shaqo taga waanu Singapore baan ka shaqeeyaa markaan waa Malaysia oo meel sare soo gaadhay haddana dadkayga ay Singapore u shaqo tagayeen 1960 waa taas sida ay ahayd wad garanaysa waa intaynu noolayn baa iyo sidaa wadan noqdo 4 milyan waxaan ka badnay 5 milyan baa wadanka ku nool waa Soomaaliland bay isku dhawii kana yar waxaan uga danleeyahay waxa weeye kolba waxay ku xidhan tahay taariikhda iyo mustaqbalka halka tagayso cidaad ku dayanayso ayay ku xidhan tahay amba qof yar ahaw oo qoyska jooga amba wadan ahaw yaad ku dayanaysaa su'aasha waa in la isweydiiyo yaad ku dayanaysaa soo garmays marka anugu de hadii la weydiiyo aan kamid ahaan lahaa madaxdiina waxaan oran lahaa waa 1 iyo 2 wadamada lagu dayanaya Singapore waa kamid wadamada Afrika qaar baa jira wadanka Afrika maanta ugu qiimo weyn ee adduunyadu ay dhageysato waa wadan yar oo populationkiisu ka Somaliland nuskeed u yahay nuskeed 2 milyan ma gaari Botswana baa la yiraahdo koonfurta Afrika ku leeyahay waxba ma yahayn markuu Ingiriisku gobonimada siiyay 1966 imaka dhowr iyo 10 sanadood ugu dambeeyay iyadoo waliba cudurka AIDS-ku faraxun oo ku qabtay waxay ahayd dhaqaalaha Afrika ta ugu orod badan koraysa waan tagay anigu Cabdi wuxuu ka qoray buug weyn buu ka qoray adduunyada laga akhristo Botswana intuu tago 2 sanadood joog
wax walba everything works in that place magaalada caasimadooda haddaad tabto indhaha kusoo bixi magaalo yar oo qurux badan oo nadiifa oo wax walba shaqaynaya markaa singapore maahay halkan africa ayay taasi marka su-aasha reer somaliland waxa weeye yaad ku dayanaynaa waa intaa la isweydiiyo yaan ku dayanaynaa anuu jawaabteedii taa marka iyo wali iyadoo buuxda ma maqal mala haddee idinkaa bixin doona yaa lagu dayanaya ta labaad doonaya inaan idin yar taabto waxa weeye anigu waddanka in badan baan maray maalintii dhaweydna waa taan ilaa barigaa fog tegey dadkii waan soo arkay sabtidana galbeed iyo dhulkaa duufaanadu ay aad u garaaceen baanu soo maray oonu ku maqnaan doonaa taako taako salaxli ballan baanu leenahay walaalkay meeyarka ballan baanu leenahay inaan tagno maxaan uga dan leeyahay waxaas waxa weeye wax kale maahee dee inaad maskaxdaada sidaad adduunyada uga fakirayso iyo caqligaaga waxa ku jira iyo dadku siday u nool yihiin waa inaad labadaa isku xidhaa iskuma xidhi karaysid si dhaba haddii aanad dhulkii iyo dadkii arag oonad soo waraysanona indhahaaga iyo dhagahaaga iyo qalbigaagu aanay soo arag anu waxaan leeyahay somaliland day anna waan idinku jiraa dee kama hadlayo qof dibad ka yimid oo meel ka jooga innaka haddaynu nahay reer somaliland amuuro badan baa ina hor yaala wax badan baa la qabsaday anu idaacadaha waxaan u sheego waxaan ku idhi ninkii i waraysanayay wuxuu yidhi singapore baad ka hadashay in badane somaliland markaa saasay noqon kartaa baan ku idhi haddii laga shaqeeyo 50 sannadood ha nagu qaadato it doesn't matter laakiin waddadeedii haddii la maro saansaanteedii ma leedahay buu ninkaasi igu yidhi inaad dhegaysateen moogi saansaanteedii waxaan ku yidhi haa way leedahay singapore saansaanteedii bay leedahay haa haye macnee markaasuu yidhi nin yaroo good journalist waxaan ku yidhi hargeysa waxay noqotay 1991 qofkii hargeysa joogay waxay noqotay dee waa la wada ogyahay way dambasowday soo adamaad gar way dambasowday waa laga guuray 60kiiba inteenii wixii wax garanayay wax lahaa xoolo xamar baa ay u guureen dabeetana dagaalo iyo cadaadin iyo adduunyo kale ayaa uga dambeysay civil war way dambasowday 1990 2018 baynu joognaa waa 18 sannadood u badan dee waxaan ku leeyahay hargeysa soo arag haddaana tegin baabuurtii meel ay kala dhigaan bay laayihin oo waa in dee way bateen too much baabuurna lama qaadan karo haddaan meesha waxoogaa jeebku waxa ku jirin dee baabuur lama iibsan karo aqalada soo eeg baan kurukani ka mid iyo hudheelada waaweyn waad arkaysaa calaamadihii magaaladii way badatay dadkii wuu batay shaqadii way badatay it's a city habeenkii weliba markaad aragto amba daantan aad joogto amba daanta kale aad joogsato anu hudheelka dama la yidhaha baan deganahay fooqa sare ee 6aad habeenkii waan daawadaa magaalada xaggana waan imaadaa habeenkii oo dhanka kalaan ka eega quruxdeeda waad yaab waxaa u hadhay wadooyinkii oo si wanaagsan loo dhiso light treegii oo si wanaagsan oo dee public lights ay magaaladu yeelato waxaa haddii laga shaqeeyay iyo nadaafadda laga guro waxay ku taallaa meel aad iyo aad iyo aad u qurux badan khaasatan weliba daantani aad u qurux badan markaa saansaanteedii way leedahay laakiin anu waxaan leeyahay dhaqaale dhis aqoon dhis siyaasad dibadeed dhis maxaan ku idhaahayey caafimaad dhis waa arrimihii aanu dan anagu reer kulmiya nahay aanu dagaalka ku galnay xisbigana waa laga sugayaa taas ya inuu ka dhabeeyo dee oo la keeno ya hadalkii la keen dadkii laga iibi waa la guulaystay okay now the work begins waa laga sugayaa xisbiga waxaan se idin leeyahay walaalayaal dadka 3 amuurood keeni waaya amba ha noqoto aqoon la dhisayo amba ha noqoto caafimaad la dhisayo amba ha noqoto siyaasad dibadeed la dhisayo 3 amuurood dadka keeni waaya wax kasta hadday haystaan way dabran yihiin oo ma dhaqaaqi karayaan and this is the story of the human race ciddaad daristaba sidaas way ka muuqata kow ta ugu horeysa waxa weeye waddan cadaalad in laga helo cadaalad in laga helo haddaanu cadaalad waddan ku dhisnayn waa meel habaar yaallo wey ya ilaahayna habaarayo bini aadamka ku noolna ay ishabaarayaan haddaanay cadaaladi jirin anu walaalahay barigaa fog ee somaliland degan waanu wada doodnaa marka qaarkood doodad kulul baana dhex maray ilaa 20kii sannadood ugu dambeeyay khaasatan intaan waddanka ku soo noqday 7 sannadood 6 sannadood ugu dambeysay waxay igu yidhahan waa reer somaliland waa asalkii reer somaliland dadkaas markaanu aad wada doodna waxay yidhahaan halkaa xamar wax inoo yaallaa ma jiro waa iga dhammaatay wax inoo yaallaa ma jiro hadda eekata kelmadda wax inoo yaallaa halkaa ma jiro laakiin professor samaterow
hadda dhegaysataa abtiyaasha ma laga helayaa cadaalad hadda baleegad abtiyaasha cadaalad ma laga helaya de waa su-aal miiska goor walba taala amba wadani ahaw amba ucud ahaw amba maxaan ku rahay kulmiye ahaw it doesn't matter waa miiskay taaganta soo degamaysa inta laga meermeerayana oo jawaabteeda laga bixina way naga kala daadanaysa soo cadaalad waa kow two waxa weeye dadku in ay aaminsan yihiin karti wax la yidhaah karti iyo qabiilna shaqo iskuma leh qabiilku wax kale ma haddee kada tolnimada dadka meel ku wada dhashay ee istooyanaya ee dadka madaxda u ah ee salaadiinta iyo odayaasha iyo fahamsan taasi waa dhaqankii diibka ahaa ee dhabta ahaa qabyaaladu maaha taas qabyaaladu wax kale ma waa tolnimadii oo la fasakhay la wasakheeyey la jajabiyey waxa la wadaana ay tahay sida looga baxsanaya karti iyo aqoon baa laga baxsanaya kolka haddaad tidhahdo anigu reebel baan ahay dee uma baahnid certificate kale dee miiska waad soo fadhiisantay reebel baan laakiin aqoontu waxay la dagaalantaa waxaasay la dagaalantaa karti somaliland waa inay karti keenta karti aan hore loo arag waa inaan keennaa haddii aynu doonayno inaynu duulno dee waa in karti la keeno cadaalad iyo karti waa laba ta saddexaad ee waxaa isku duubaysaana waxa weeyi dee markaad ilaah ka baq iyo cibaadada soo dhaafto ee laga adduunyo dhismadeeda laga hadlayo waxa weeyi in la isla fahmo waddanka in la wada leeyahay oo wada jirnimada unity of the people inay jirto kolkaa wada jir iyo cadaalad iyo karti haddaynu saddexdaa keenno anigu waxaan ku khamaari haddaan dee 50 sannadood waqtigaasi waan xijaab way dheer tahay bini aadan way dheer tahay laakiin waxaan ku khamaarayaa caawana iga gunta saddexdaa haddii laynaga helo maanta iga gunta oy naga dhab noqoto oo intayna noole aynu ku dhaqmayno kuwaynu dhalnayna aynu ku tallaalno oy noqoto markaa maskaxda waddanka iyo ethicska waddanka sida loo nool yahay sida loo xisaabtamayo anu waxaan qabaa somaliland 50 sannadood iska daaya 20 sannadood 10 sannadood 5 sannadood in lagu arki karo iyadoo durba meel kala marto oo socoto soo degarmaysa dadkii waddankaa tihiin inta yada maxaan ku rahay professorada sheeganayso un ha tuhminaya waynu u wada joognaa kartideedana waynu wada leenahay waddankana waynu wada wadaagnaa taariikhdana waynu wada leenahay marka anigu waxaan odhan lahaa saddexdaa ha la adkeeyo saddexdaana waxa ag yaalla inay noqoto yaan ku dayanaynaa adduunyada waxaan kusoo gebagabayn islaamka xadaaradda islaamka anigu in badan 10 sannadood in ka badan baan akhriyay oon darsayay course baan dhigaa ku saabsan civilizationska islaamka iyo kristanka iyo halkay ka yimaadeen iyo taariikhda adduunyada islaamku wuxuu noqday markii arabiya aw ka ballaadhay taariikhda xadaaradda islaamku arabiya ma halka ugu waaweynaa adduunyada nuurka ugu weynaa islaamku wuxuu noqday markii ugu dambeysay Spain meel la yidhaah ya Moorish Spain meel ay noqotay magaalada Cordoba la yidhaah oo dadka islaamku ay xukumeeyeen oo degeen waxay lahaan jirtay library-yo iyo nal suuqa maxaan ku rahay wadooyinka la dhigay ma hadda kan laakiin daqiiq lahaa dabka lahaa street lights sewage-kii ay qaadaya xashiish library-yan hore loo arag markaas Europe dadka Ingiriiska ay oran jireen haddaynu wax noqonayno hadda baleegad haddaynu wax noqonayno waa top British English leaders like Roger Bacon walaha haddaynu wax noqonayno waa inaynu ku dayanaa muslimka Spain degan waa inaynu ku dayanaa marka caruurtooda ay usoo diri jireen halkaas sida maanta Mareykan caruurteena iyo England iyo loo diro soo damaadka wuxuu noqday islaamkii markaa in ku dhow 600 oo sannadood tiriga ugu weyn adduunyada xadaaradeed ayuu noqday soo damaadka aynu isweydiino markaa dadku way isku daydaane yaynu ku dayanaynaa oo inoo ah qofka dadkaynu doonay inaan la tartanaan ku dayanaa isweydiino aad iyo aad baad u mahadsantihiin sharaf weyn bay ii tahay inaynu is aragnay odayaashii halkan ka hadlayna si weyn aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqaya hodheelka iyo walaalkay ninka halkan le casuumadan wanaagsan la dhigana si wanaagsan aan khaasatan walaalkay Yusuf oo tan waxaan oo dhan ka dambeeyay si weyn baan ugu mahadnaqayaa idinkuna dee waad mahadsantihiin ma kala tegayno anigu abtiyaasha waan soo dhaafay soo adamaadka oo waay kan sidaasaynu sugnahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu